war adiga maxaana kaa duldhigay gurigan iska weyn laakiin gudaha faaruq baad ka tihiin mashquulka gurigayga qorshe dhaamaa jira kaymka dabeecadahan dambe la soo baxday umaan bogin hooyo soodiga og maaha wax kastoo la qaray inuu qurun ku jiro inaga mar walaal meeshaan iskaga tagnay walaal yari sugaan uu ka arkay iyada daraaddeed baan yimid oof jacaylku hawaaro aabbahay meeshuu ku nool yahay ma rabti soo maaha inaad ii sheegto taasoo annaga hore uga wada hadalnay dee lacagteer waan ku siinayahay ee adigu aabbahay maad ii sheegtid aad baan ugu baahanahe markaas unbaan kuu sheegayaa walaashaa uu ka iga waran gabadhaydii ma ogti aabbaha inuusan mudnayn inuu aabbahaa noqdo kama qoomamaynayaba midaas aabbahay waa aabbahay laakiin ogow maalintaad wiilkayga wax walba ogeysay sidana inay maalinta igu kaa dambaynayso isla imika waan ogeysiinayaa hooyo aniga agtayda waad ka dhimatay hooyo waan ku bariyaa isdaji aabbihii duni kale u tegay gabadhaydii waxaan aad uga qoomamoonayaa ninkan aan guursaday waa nin xunoo danaystaa gabadhaydii lacagtana aad buu u jecel yahay gabadhaydii waan ku bariyaa walaalkaa waxba ha ogeysiinin sabab laakiin hooyo sababtoo ah gabadhaydii walaalkaa waa hanti lamana rabo hantidiisa inuu aabbihii ku dayaco hooyo aabba waa ka dibadda joogaa wiilkaygii baashii sideybad ku ogaatiin xanuunsanayso wax walba guriga ka socda waan ogay gabar xaaladeedu kaliya sidee laakiin macquul maaha cidda wax walba ila socodsiis agtaada kama foga yaa waayo qofkaas qofka haddaan kuu sheego waa wiilkayga walaasha xaalad degdega uuka walaasha maxaa ku dhacay walaasha anshaalla si dhaqsila waynan u soo eegaa ciyaartu weli way noo socotaa amba feefe hore lahaw amba adkaysi dambe lahaw maxaa wiilkayga ku daba dhigay waad u jeedaa ilaa imika inaan wax khalada lahayn wiilkayga ma raba inuu adiga ku ogaado waan ogahay iimana oga cabsida iska da niyo walaashay madii sheegtaa gurigan waxaan ka jira walaalkay dibadda tag saad u ogaatid waxa jira waan ku salaamaya gabadheeda ilaali dhaqsi ii sheeg aabbahay aaway maxamed deeq waa aabbaha yaah waxani macquul ma aha wiilkaygii ha ii soo dhowaanin bartaada joog wiilkayga hal mar unu dhegayso adigoo nool soo agoonigamaad dhigin laakiin wax walba sababa ayay leeyihiin sababta ugu weynaad carruurtaada uga tegaysaa waa maxay eed weliba nagu cidlaysay hal mar haddaad dhegihiinaysaan wax walbaad ogaanaysaan maxaa dhacay aabba nooga sheekee cidda keliya sababta inaan kala fogaano waa hooyadiin waa qof xun iyagaana ina kala fogaysay inaanu is aragna may jeclayn oo aynu noqono faamili isku duuban hooye hadalkaa maxaa ka jira wiilkayga hadalkiisu wuu saxan yahay wiilkaygu hadduu ogaado inaan aabihi ahay khaladkao dhan dushaadan kaa saaraya oo magaastan cabbaa marka anigu haddaad amarkayga diidaan wiilkaaga ragga ayaa u diyaartay dunidan waa la dhaafinaya hooye adiga maxaa kaa khaldan maxaad sidaa u samaynaysaa waan ku bariyaa wiilkayga iga raali noqo hooye wax wanaagsan maadan samayn annagoo carruurtaadiiadna dhahaysa aabihiin uu dhintay waan idin bariyaa carruurtaydii aamina mar dambe kuma aaminaya hooye wax kastana way dhammaadeen qalbi waxaan kuu rajaynayaa inay wax walba kuu hagaagi doonaan waa mahadsan tahay macaan badan wiilkayga anigoo hooyada intaa ku soo leekaysiiyey miyaad sidaa igu tiri kasta waxay mutayshata ha hesho waa saxan tahay aabba haa waad saxan tahay aabe ii kaale iyo carruurtaydii saaxiib waan ku bariyaa istaji carruurtaa sharaftaydu u gubay iminkana garabkayga ma taagnaa hani waa adduunya saaxiib ilaahay abaalkaaga jannaha ka dhigo ciyaartu hadday bilow tahay aabba qasrigaaga ku soo dhowow wiilkaygii gabadhaydii aad ayaan nagu xiisay aabe mar walba garabkaaga naga filo walaal fikirkaygu uu fashilmi rabaa madeeq hadda aabbihii buu helay hantida isaguu ku qorayaabaan u malaynaya dee haa taas waa macquul aniguna wax kala ma rabe hantidiisa ayaan rabaa wiilkaygii